سيدي ضيع قيد الأولياء على القرحون بمن ذهب سيدي ضيع قيد الأولياء حتى دار القرى دبتيكو ويو مين دما يسيها وين كلات حتى دار القرى دبتيكو ويو مين دما يسيها وين كلات على القرحون بمن ذهب سيدي ضيع قيد الأولياء على القرحون بمن ذهب سيدي ضيع قيد الأولياء حتى دار القرى دبتيكو ويو مين دما يسيها وين كلات حتى دار القرى دبتيكو ويو مين دما يسيها وين كلات لكن هويو يبعدو هورتي لكن هويو يبعدو هورتي مقدش دولي كسودوبا مقدش دولي كسودوبا هرقص دولي كسودوبا هرقص دولي كسودوبا أوذا ديلي أوذا ديلي دكيغا كالي أوذا ديلي دبتيدا كالي سوينو مذب لديناي دحير كبويني جعيل دي طيساي لما سوينو مذب لديناي دحير كبويني جعيل دي طيساي هذا دبن كاغدون كان بوايو ميان بدي في جعيل كلاشتا هذا دبن كاغدون كان بوايو ميان بدي في جعيل كلاشتا لما سوينو مذب لديناي دحير كبويني جعيل دي طيساي لما سوينو مذب لديناي دحير كبويني جعيل دي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برامج كنا بلابننا أذكر مهتسن دور كلمدود أو كوبنا هالكن لقيت جديد دونا وجديد هالكن ليسوي مد وحكوس أبسنت هاي حفلة فريتان كأما لانج جرينتا هول كان عصب The Valley هول أو فاطمة عبد القادر إيمان 5 بيسو أو كان عصدا عن كان نيروبي كمدا كفرتي هالكن حافظة سكشن 3 أجار كرام هومس وهول أو كعصب قابب كي هراء أما بكدوان نيروبي أو نقشة سن ديارسان لو تلقى لحفلة ده أروسيدا يو سيدو كله عزومة ده جار كأه مركا عاو عشان وحلو سمي دت جارها ورياش كمديني دت كله عن كأه iyo qaar kamid ah ganacsatada dumarka ugu qorxoon gabdhaha ugu shida Nairobi sida ugu maateen waa ku maasantiin waa ladkaaga mahad celinaya sidoo kale in loo duceeyo oo lagu amaano 5 peso azumaadana idin sameeyay macnaheedu waxa waa in dad kale aad uga dhowdihiin marka ujeedada guud waa xafladda furitaanka hallkan The Valley Hall ee xaafadda laga furay section 3 dabcan waxaana uu kaga duwayaa hoolalka kale وهول أخيارات أو أنت بدن عزومتها عشرين كي قدادة يو قراعة يو وحيابها كاركا لغو سمين دونه ميوزك يو وحيابها مجري دونان وهول دعيسن مركا دور قفاض وحربا إنا ويرو وإيقنا كلمدوه دا كجيديان وحانكو بلاوي حسن الشيخ عمر أو التقانان وذات كورياشا هون كابل كهول قلا وقت بدنا مقالة الجوغي 5 بيسونا سفعان يسوي قانان وكمدا ورياشا وقف فرعون مقالة حسن كسلو قدو واد ما سنتهاي waxaan codsanayaa horta marka hore 5 peso maamadeena walaasheen inay halka soo istaagto waxaan rabaa si kaliya laab ah in loogu sacbiyo حق وجهي صرت هلوجو عليو أدبا وما سنتاي وكاغا مهل علينا ولكن قروح ذا بدن يسيدا قروح ذا بدن النوم ارتقادي ورياش طبعا صاحب جونيا يلا تهاي الله كل شرفه هل كان وحي وجود وانتهى ما هو كان وحي وجود ويا هو الكلا وكو قروح بدن هاي ورياش waxaad dabcan saaxiib latiin 5 peso oo ah walaasheen ama ah maamadeena
marka haddaad aroosaysaan ama aad qabsanaysaan xaflado hoolka yaa la moogaanin aad baa u mahadsantihiin waan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noo sharaftay waa ku faraxsannahay ilaahay ha kuu barakeeyo ilaahay ha maalka iyo halkan lacagtaad gelisay wax ka qayr badan ilaahay ha ku siiyo ilaahay ha u aqbalo ilaahayna ha u barakeeyo walaasheen way mahadsan tahay ilaa jaamka dad badan ayaa dabcan in badan meelaha ay joogto ama maqaaxideedii jaamka ku taalay dad badana oo wariyaasha ka mid ah iyo asxaabta kale ayaa hore u joogi jiray hoolkan qof walba oo halkan jooga caaw oo lagu marti qaaday rag iyo dumarba gaar ahaanna wariyaasha waxa mas'uulin ka saaran yahay inaad ka qayb qaadataan maadaama uu cusub yahay kicintiisa inaad ka qayb qaadataan inaad xafladaha dadka qabsanaya u sheegtaan oo u tilmaantaan inaad haddii xayeysiin tahay goobaha ama baraha bulshada aad ku qortaan oo aad u faafisaan walaasheen marka aad waa u mahadsantihiin waa u mahad celinaynaa mar kale geedowna waa mahadsantahay iyo asxaabta kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wadaadka wariyaasha waa mahadsan yahay arooska wariyaasha waxaan umaleynaa iska burdaad waa ku yaryihiin anaa ugu dambeeyay waan istuuree faybeso hadda wixii labalabeenaya arooska waxay ku dhigan doonaan halkan maxamed caraba hadda ugu soo horeeya arooska ugu soo horeeyo oo isagana saaxiibka wariyaasha wuxuu ballan qaaday halkan inuu ku dhigan doono hal kastamar waa haysataa horta kow kastamarada kale waa la heli doonaa faybeso waa maamadeena waa maamada wariyaasha keegyada aroosyada iyo waxyaabaha saciida ayaa samaysa long time-na waxaa ka mid ahayd dadka Nairobi dabcan maqaayadaha iyo ganacsiga noocaas aaday noo soo korisay annaga waa hooyadeen waa u mahad celinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxyaabaha waqti waa soo koobi doonaa laba qof inaan u yeeraya rabaa cabdicasiis barrow baan rabaa oo wariyaasha ka mid ah RTN بسم الله هذا يدوم هالسنتين أصحاب تدمان كسر قريب كش مناسبة iyo gabadhii walaashana ahayd oo caaw munaasabadan qiimaha badan iyo cashadan inoo sameeyay waxa leenahay aad bay u mahadsan tahay runtii walaashan waxay sameysay arrin wanaagsan oo ku aadan horumarinta ganacsiga wariyaasha inta joogana waxay ka mid yihiin dadka indhaha u ah bulshada meel kasta oo ay aadaan waa dadka lagu soo hirto marka waxaan jecel lahay sida saaxiibkay Xasan Sheekh Umarba uu sheegay in ganacsiga gabadhan ay indhaan u noqono oo aan tusno bulshada in goobtan quruxda badan ay furtay walaashan ganacsigeedana aan horumarino innaga tusaale u noqon karna dadkana gaarsiin karna sirta in loo marti qaadano kulli waxaan u maleynayaa dad fara badan oo meeshan joogay barahooda bulshada aad baa loogu xiran yahay marka aynu ka bilaawna caawaba in baraha bulshada la soo dhigo si loo arko aad baad u mahadsantiin markan waxaan rabaa dhinaca dumarka intisaar saalax xuseen ayaan u yeerayaa oo asxaabta wariyaasha ka mid ah RTN wax badan magaaladan soo joogtay laftirkeeda ganacsata ah fikirka ganacsiga iyo faa'iido leeyahay wax badan ka fahamsan fiber si fiican si qana intisaar ku soo dhawow adigoo mahadsan codka dumarka ku hadal inkastoo England ay joogto ayadana u yeeri doono laakiin qaybaha dambe waa iyada af bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan u mahad celinayaa walaasheen Faybeso oo hoolkan quruxda badan leh sameysay isla markaana ku casuuntay wariyaasha si gaar ah waa gabar wariyaasha si gaar ah saaxiib ula ah dhammaan wiilasha halkan fadhiyo waxa ay u tahay maamo annagana sidoo kale waan ku faraxsanahay sharaf weyn ayay noo tahay in maanta halkan ay nagu casuunto caawa waxaan leenahay ganacsigaaga allaha kugu barakeeyo waxa kale oo cajiibka waxay tahay in ay goobtan ama hoolkan loogu talagalay aroosyada oo uu ka duwan yahay hoolalka kale ee ku yaala magaalada Nairobi oo ay ugu talagashay in aan markaasi wax muusig ah aan lagu sameeynin way fiicantaa qofka ganacsigiisa inuu waxyaabaha shakiga gelin karo in xoolihiisa ay wanaagsan yihiin in kale uu qofka aad uga fakiro marka Faybeso waxaan ku leenahay hambalyo walaal halkaas ka sii wad annaga meeshan waxay noqon doontaa meesheena sida geedo uu sheegay inta badan dadka waa la wada xarooday wax yara dhiman wiilashu way labaysan doonaan gabdhahana inta dhimo waa la keeni doonaa insha Allah waxaan ku leeyahay hambalyo ganacsigaagana Allah ku barakeeyo waad mahadsan tahay torta jir doonto la jari doonaa laakiin dhowr qof kale inaa khudbadaas yaa rabaa wariyaashu way badan yihiin dabcan wariyaasha jooga laakiin waxaan u yeerayaa Axmed AC oo ka mid ah asxaabta wariyaasha
dhammaan ka soo qaybgalayaasha waa salaamantiin waxaa idinku salaamayaa salaan islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo xafladdan iyada ah aniga u mahadcelinayo walaashiina ama maamada wariyaasha faybeeso howlkan quruxda badan ay samaysay insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa aan ka baryayaa in ay u noqoto meel dadkoo dhan ay u soo aroos doontaan insha allah meesha howlkeeda waxaan maqli jiray argiis ku deeqaa uuntiis ku deeqdaa yacni meesha siday u qurux badan tahay aad bay ani ahaan ii soo jiidatay waxaan rajaynayaa dadkoo dhan inay sidaa u soo jiidatay meesha quruxda badneed waa meeshii balqiisa uu nebi saleemaan u sameeyey iyadoo laga tusaale qaadanaya quruxda biyaha iyo siday u samaysan tahay aad baan ugu helay marka waxaan leeyahay meesha meel barakaysan allaha ka dhigo dad badan oo aftaaniin ah ayaa horteeda hadlay oo duceeyey anigana ducadaas aan sii dhiirigelinayaa insha allah waxaan leeyahay walaashayna ganacsigeeda allah u barakeeyo doorka ay ka ciyaartay aroosadii ugu dambeeyey ayaan aad u xasuustaa toortooyinkii ay samaysay qof farsamadeeda aad u fiican tahay waaye waxaana taas sii caddaynaysa howlkan quruxda badan ee aadka u weyn marka waxaan leeyahay iyadana waan ugu mahadcelinayaa dadaalka badan ay gelisay insha allah way sii gaari doontaa dadka intooda badan meel loo soo aayo loo soo jamada way noqon doontaa waxaan leeyahay meesha ilaahay ha barakeeyo aadaan ugu faraxsanahay sida cashada sharafta ay noogu samaysan ilaahay subxaana wa tacaala ajra ka siiyo waa marar badan kun mar ayaan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ee noo soo dhabaysay insha allah meeshan allah barakeeyo ayaan leeyahay meesha aad ku qurux badan assalaamu calaykum waraxmatullah waa soo koobi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan u yeero cumar caaqil waa maqan yahay hortooda fibes taleefonkuuna dansaday caawa marka ma aqaano in la ganaaxo waayo laakiin saaxiibkiisa cabdishakuur cigalle ayaa markaan u yeeri doonaa muuqaaladan quruxda badan cabdishakuur iyo cabdijabbaar cali nimtay ay iska kaashanayaan mawlida duba cabdishakuur kaala soo istaag waa lafii hore ee wariyaasha nafta leh ee ka soo qayb gashay furitaanka hoolkan waxaan leeyahay walaashay faybeeso ilaaha kuu barakeeyo waxaa jira wariyaal badan oo iskaabula ah oo weli aan aroosin marka waxaa laga rabaa inay hoolkan aroosyada ku dhigtaan laakiin faybees hal miday ku dheeshay ma isdhahdeen muusig ma jira haddii la dhaho waxaa waaye wax badan waa halaabayaan ma fahamtid marka waxaan jeclaan lahaa faybees muusig ha lagu daro laakiin ha la yareeyo micnaha maadaama oo dad daris iyo buuq laga diidayo ha la yareeyo muusig ha lagu daro marka waa mahadsan tahay bibo igran oo yaraya markaan gender balance iyo region balance waxa weeyaan horta aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa halkan aad nagu cusubtay horta tii lacag ahayd ba haddaad heshay marka horta hoolkan oo kale wallaahi axdiga ilaahay wallaahi inaan arkinin waa hool yar waxaan ku kuwii Soomaali ahaa laakiin marmarkoo muusig ma noogu xadido abaayo halkoo mar marka aad baan ugu mahadsan tahay meesha quruxda badan inta soo wariya agaasimahaygii Maxamed Yuusuf Axmed RTN Alju Al Sheikh Shariif ka soo bilow inuu joogaa wariyaashina xabad kama maqnaa marka caawa meeshaad nagu kulmisay insha Allah mar walbana waan ku kulmaynaa halkan baan isugu iman doonaa waana mahadsan tahay hool qurux badan oo kharash aad gelisayo bahala yar yar oo leeyahay eesh calaabaan ku qiyaasig lama soo koobi karo marka waa taa mahadsan tahay anaguna kaaga mahad celinayna insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u balyeelayaa oo aan ogaadinayaa hoolkan quruxda badan iyo dadaalka ay sameysay walaasheen faybeeso runtii qof walba oo muxuu ahaa fikir caynkan oo kale aan ku fikira isla markaana bulshada wax qurux badan u soo bandhiga waa wax lagu farxo waan dhiirigelinaynaa waan fogaadinaynaa hase ahaatee annaga oo ah bahda miidiya waxaan aad u rajaynaynaa in walaasheen maadaama ayada dhaqaalo fara badan ay halkan gelisay inaan kala shaqeyno sidii ay uga mari midho dhalin lahayd hamigii ay lahayd
isla markaana muxuu ahaa custom fara badan maadaama meesha laga hirgeliyay ay tahay xaafadda Islii oo ay degan yihiin Soomaali aad u fara badan inaan kala shaqeyno sidii Soomaali fara badan oo xaflado iyo munaasabado fara badan dhiganayo sidii aan ugu soo xiri lahayn isla markaana hoolkan aan u shidi lahayn waan kala shaqeyn doonaa garabkeeda ayaan istaagi doonaa waana bogaadinaynaa hambali ayaanu leenahay sidoo kalena waan soo dhaweynaynaa dadka fikirka caynka oo kale ah qaba markaas maalgashiga sameynayo dhiirigelin iyo garab istaagna ayaan mar walba la garab taaganahay mar labaad iyo mar saddexaad hambali ayaan ku leenahay